waad salaamantiin asxaabta kusoo dhawaada barnaamijkeena on target oo aanu ku falanqayno kulamada ugu waaweyn ee la ciyaaray toddobaadka. Waxaan muuqaalkan ku eegi doonaa kulanka ugu horreeyay horyaalka Ingiriiska ee Premier League oo soo laabtay. Kulankaas oo ah kulanka dhex maray kooxaha Tottenham iyo sidoo kale kooxda Brentford. Haddaba kadib markii lagu maqnaa muddo 43 maalmood ah, koobka adduunka ugu dambeyntii waxaa bilaabmay ama waxaa dib u bilaabmay horyaalada ugu waaweyn qaaradda Yurub, gaar ahaan horyaalka Ingiriiska ee Premier League. waxaana horyaalka lagu furfuray kulanka u dhexeeyay kooxda Tottenham iyo sidoo kale kooxda Brentford, kulankaas oo kusoo dhamaaday barbardhac 2-2 ah. Haddaba kooxda Tottenham ayaa ilaashatay rikoorkeedii ahaa inaan laga badin kooxda kulamada ugu dambeeya ay kooxdu ciyaarto sanadka dhammaadkiisa ama kulamada loo yaqaano maalmaha la ciyaaro Boxing Day-ga. sidoo kale ciyaartoyga Harry Kane ayaa isaguna waxa uu sii ilaashaday rikoorkii ahaa inuu noqdo ciyaartoyga ugu badan ee maalmaha Boxing Day-ga goolalka dhaliya horyaalka Ingiriiska. ciyaartoygan sanadii 2014 kulankii Boxing Day-ga uu ciyaaray waxa uu 1 gool ka dhaliyay kooxda Leicester City. sanadii ku xigtay 2015 waxa uu 2 gool ka dhaliyay kooxda Norwich City. sanadii 2016 waxa goolaha muu dhalin Boxing Day-ga, balse 2017 waxa uu hat-trick ka dhaliyay kooxda Southampton. 2018 waxa uu ka dhaliyay Bournemouth. sidoo kale waxa uu 1 gool ka dhaliyay sanadii 2019 kooxda Brighton. 2021 waxa uu ka dhaliyay kooxda Crystal Palace. sanadii 2022 waxa uu ka dhaliyay kooxda Brentford. waxaana Harry Kane haystaa 10 gool oo waa ciyaartoyga ugu badan ee goolalka dhaliya horyaalka Ingiriiska ee Premier League Boxing Day-ga. haddaba haddaynu eegno kulanka iyo sidoo kale qaab ciyaareedkii iyo shaaxa labada kooxood, kooxda Tottenham marka laga yimaado goolwada Hugo Lloris oo isagu kaydka kusoo bilowday, inkastoo la sheegay goolwadaha inuu diyaar u ahaa kulanka, balse tababare Antonio Conte kuma soo bilaabin oo waxaa kusoo bilowday goolwadaha labaad ee Foster. inta kale ciyaartoyda kale ee kooxda Tottenham dhammaantood waxay u badnaayeen ciyaartoydii markii horeba line-up-ka ahayd ee u ciyaari jirtay ama sida joogtada ugu ciyaari jirtay kooxda Tottenham, marka laga reebo sidoo kale ciyaartoyga Richarlison. dhinaca kale kooxda Brentford ay iyaguna ku ciyaarayeen ciyaartoydii dhammaystirnaa, oo sidoo kale waxaa ciyaarayay ciyaartoyga Ivan Toney iyo sidoo kale Mbombo oo ka ciyaarayay ahaa labadii ciyaartoy ee weerarka ka ciyaarayay. haddaba kooxda Tottenham ayaa ku guuldareysatay inay gaadho guul oo kooxda 5 kulan ee ugu dambeeyay horyaalka Ingiriiska ay ciyaarto wax guul ah may gaadhin. sidoo kale waxay isku mid yihiin kooxda Wolverhampton oo labada kooxood wax guul ah may gaadhin 5 kulan ee ugu dambeeyay ay ciyaaraan horyaalka Ingiriiska ee Premier League. sidoo kale kulankan maantana waxa ay galeen barbardhac oo Tottenham waxay ku fashilantay in 6 kulan ee ugu dambeeyay ciyaaraan horyaalka Ingiriiska ay wax guul ah gaadhaan. kooxda Brentford ayaa soo bandhigtay kulan aad u fiican, gaar ahaan 30 daqiiqo ugu horeeyay kulanka. kooxda Brentford waxay soo bandhigtay kulan aad u fiican kaasoo ay kaga fiicneyd kooxda Tottenham, sidoo kalena ay u diiday kooxda Tottenham inay fursad abuurto, oo kooxda Tottenham waxay fursad abuurtay daqiiqadii ugu dambeeyay ama daqiiqadii 30 wixii ka dambeeyay. haddaba kooxda Brentford ayaa goolasha furfurtay oo ciyaartoyga Janet ayaa daqiiqadii 14aad gool u dhaliyay kooxda Brentford. sidoo kale ciyaartoyga Ivan Toney ama kooxda Tottenham ayaa isku dayday inay fursado abuuraan daqiiqadii ugu dambeeyay qaybtii hore ee kulanka, inkastoo kooxda Brentford ay dhammaadkii qaybtii hore ee kulanka gaar ahaan daqiiqadii 43aad uu ciyaartoyga Ivan Toney gool u dhaliyay, balse goolka la diiday oo offside ahaa. haddaba kooxda Brentford Tottenham qaybtii hore ee kulanka waxay u diiday inay u ciyaaraan qaabkii ay doonaysay, sidoo kalena kooxda Brentford waxay ka ilaalinaysay kooxda Tottenham inay counter-attack ciyaarto, arrinkaas oo yareeyay khatarta ay lahaayeen ciyaartoyda Harry Kane, Son iyo sidoo kale ciyaartoyga Kulusevski. haddaba qaybtii labaad ee kulanka sidoo kale kooxda Brentford ayaa sii waday qaab ciyaareedkii fiicnaa oo u diiday ama ka xidhay kooxda Tottenham dhammaan goobaha garoonka, oo sidoo kale u diiday counter-attack. sidoo kalena kooxda Tottenham kubadda u diiday oo pressure saarisay ama cadaadis, taasoo kubadda markiiba ka qaadaysay ciyaartoyda kooxda Tottenham marka ay soo gaarsiiyeen ama kubadda ay soo gaadho khadka dhexe. haddaba qaybtii labaad ee kulanka ciyaartoyga Ivan Toney ayaa la awooday inuu goolka labaad ugu daro kooxda Brentford oo kulanka ka dhigo 2-0. midda kale kadib markii ay kooxda Tottenham soo bandhigtay qaab ciyaareed aad u xun qaybtii hore ee kulanka, waxaan suuragal ahayn inay kooxda Tottenham sidoo kale qaybta dambe ee kulanka ay soo bandhigto qaab ciyaareed xun. arrinkaas oo keenay kooxda Tottenham inay kulanka soo gasho kadib daqiiqadii 55aad oo kooxda Tottenham ay bilowday inay fursado rasmi ah abuurto, sidoo kalena uu awooday ciyaartoyga Harry Kane inuu daqiiqadii 64aad u dhaliyo goolka koowaad kooxda Tottenham. intaa kadib kooxda Tottenham ayaa maamushay kulanka oo kooxda Tottenham waxay abuurtay fursado badan, sidoo kale kooxda Brentford waxay gashay daafaca kooxda Tottenham waxay ahayd kooxdii weerartamisay, sidoo kale ciyaartoyda daafacyada ka ciyaaray sida Longley ee iyaguna badinayay ama kusoo biiriyay ciyaartoyda khadka dhexe, oo ciyaartoyga Longley ayaa ahaa ciyaartoyga uu ka yimaaday ama sameeyey ama caawiyay goolkii koowaad ee uu dhaliyay ciyaartoyga Harry Kane. sidoo kale markii goolka koowaad ay dhalisay kooxda Tottenham waxaa bilowday dhaqdhaqaaqa ay sameynayeen ciyaartoyga Perisic iyo sidoo kale Kulusevski,
iyo sidoo kale ciyaartoyda Harry Kane iyo Son oo ciyaartoyda weerarka ka ciyaaraysa iyo garbaha kooxda Tottenham ayaa helay xorriyad kadib markii ay kooxda Brentford goolkii koowaad laga dhaliyay. intaa kadib ciyaartoyga Kulusevski ayaa isaguna xorriyad helay oo dhaqdhaqaaq bilaabay, arrinkaas oo keenay ciyaartoygan inuu sameeyo ama inuu noqdo ciyaartoyga caawiyay goolka labaad ee ay dhalisay kooxda Tottenham, kaasoo uu dhaliyay ciyaartoyga khadka dhexe uga ciyaara kooxda Tottenham ee Højbjerg. haddaba ciyaartoyda Højbjerg iyo sidoo kale Bissouma kadib markii ay goolka koowaad la timi kooxda Tottenham, ciyaartoyga Højbjerg ayaa aad hore u geliyay oo khadka dhexe ka baxayay, waxaana khadka dhexe uga tegay ciyaartoyga Bissouma oo isagu sii joogay khadka dhexe markay kooxda Tottenham kubadda haysato ee ay weerartamayso. haddaba kooxda Tottenham ayaa ku fashilantay inay waqti kooban sii gasho kaalinta labaad oo kooxda Tottenham haddii ay badin lahayd kulanka waxay yeelan lahayd 32 dhibcood, waxay isku dhibcaan noqon lahaayeen kooxda Manchester City, balse kooxda Manchester City ayaa waxay kaga badan tahay goolasha, sidoo kale Manchester City ayaan weli kulan ciyaarin. kooxda Tottenham hadda waxay ku jirtaa kaalinta afraad oo waxaa ka sarreeya kooxaha Arsenal, Newcastle United iyo sidoo kale kooxda Manchester City. ugu dambeyntii kooxda Tottenham ayaa hadda ku jirta kaalinta afraad ee horyaalka Ingiriiska ee Premier League. sidoo kale kooxda Tottenham waxay la ciyaari doontaa axadda soo socota kooxda Aston Villa. sidoo kale iyaguna waxaa jira kulamo la ciyaari doona caawa oo waxaa ciyaari doona kooxaha Liverpool oo la ciyaari doonta kooxda Aston Villa. sidoo kale kooxda Arsenal iyaguna waxay ciyaari doonaan derbiga London oo ay la ciyaari doonaan kooxda West Ham. kooxda Arsenal oo ah kooxda haysa hogaanka horyaalka Ingiriiska ee Premier League, kuwaas oo 5 dhibcood kaga haya kooxda Manchester City.